لغتي صوت، لغتي حرف، لغتي روح، لغتي نور في الظلماء، لغتي صوت في الأرجاء. لغتي 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 حرف به أتباهى، لغتي مجد لا يتناهى، لغتي علم يملأ فاها، لغتي فخر عز جاها. لغتي 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 دوما في العلياء، أعلام صرف وهجاء، نحو أدب والإلقاء، اسم وصف للأشياء. لغتي 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 أنت يا لغة القرآن، اقرأ رتل يا إنسان، املأ قلبك بالإيمان وبوحي الهادي المنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام. وسودوا ذخياري عشر كيني سدحات أما فيديوغي سدحات وان صوتو بني يو عشر كي لباد ويان حاجة كتابك أن أخرينو PDF كا مركا عشر كان وعشر كي لباد حاجة مركاسي ترسيق بوك أما عشرة بوك بقرن. عشر كينن وحان مانتا كو بارناينا وأولي أن كسي قد جيرنا أسماء الإشارة ومركاسي أن كسو براني هذا وكسو براني أسماء الإشارة وأهيد مركاسي اسم الإشارة لو أديكسدو وحي مركاسي لب كوسو دو وحي لب كوسو دو ومركاسي كليئة أما مفرد اسم الإشارة للمفرد مذكر قريبة. مركا كنا وحويان واسم الإشارة يسجل لفتركيسو ذلك بالإرادة، ذلك أيضا وحوي واسم الإشارة ويسجلنا ومفرد مذكر لكن محل كل دوين كي وحوها قريب كنا وبعيد. قريب ويكي هرب معناها وحكوسو دوي قريب، بعيدنا وحكافك وي مركي أتلمام يصير وحكافك أو لب أو شيء كلية وحويان ذلك بعد استعمال ذلك مركا ما ذلك وما حي كاسي أما وما حي وحاسي ما ذلك وما حي وحاسي ما ذلك وما حي وحاسي وحمركا وكافر يهي وحدك أو ومحوية مركاسي حدك ما هو حدك مركا ولب يهي عربي أهان ولب يهي محايا لي وحلو استعمالي اسم إشارة مركاسي مذكر أبا استعماله ذلك هذه أي لبتها أو حدك أي أهان لهي وحلو لها تلك بالورن لها وعلى كتاب أقول لك دونه تلك بنقول لها لكن هذا وحويان وذلك بالي صوتنا وحوي حدك كان مركاسي حدك ولب يهي واللب أهان بكرر نسانيسا كلمة ذلك ما ذلك بالي وما حي كاسي وما حي وحاسي وياهي ذلك نجم وكاسي واحدك ذلك كاسي نجم واحدك marka halkana waxaan noqon lahayd najmatun baan noqon lahayd sidan oo kale noqon lahayd tilka najmatun saas oo kale markaasi ayay noqon lahayd oo tilka iyo najmatun taa marbuuda ayaa halkan markaasi raaci lahayd sida hortaada ka muuqata hadii ay markaasi dignaan lahayd oo xidig ay ahaan lahayd laakiin hada waa xidig waan gartay cashirka markaasi waxaa kaloo lagu sii jilcinayaa marka iyada laftarkeegu haadaadi kama maqna waa qariib tana waa baciid laakiin waa mufrad waa mufrad iyo mudhakkar bay ka siman yihiin laakiin waxay kala duwan yihiin qariib iyo baciid bay kala duwan yihiin okay hada kani masjidun wa masajid hada kani masjidun wa masajid wadhalika kaasina waa fog yahay markaasi baytun waa guri مساجد كانوا كورسو دو yahay wax yar buu ku jiraa laakiin guriga ayaa ka sii dambeeya oo xagga dambe ka sii muuqda marka waxaad adeegsanaysaa
ذلك والله ما أورنيسيد هذا مسجد وهذا بيت ماي هتي أي سكرب يهين أو مركز مسافة اسكو مدة أي كوجران وحضرنا هذا مسجد وهذا بيت هتي مركز أي كوسو دوبه لكن هتي مدة كوسو دوبه مدنا وكافق يهي وحد كلا دكسنا هذا إيو ذلك هذا مسجد كان ومساجد وذلك كاسنا بيت قريبي أوكي هذا كان حصان فرس وي وذلك كاسنا حمار ضمير وي marka hadda halkan maxaa kaaga muuqda labada sabab waa lagu fahansiinaya casharka waxa lagu soo dhaweeyay kii haadaada loo isticmaalay waa kan ku soo dhaweeyay waxa la yiri haada kani حصان فرس وي لكن ضميركي halka dambaa lagu sawiray si aad u fahanto macnaha labada kelmadood oo hada iyo dalika waxa ay kala yihiin wadalika kaasina حمار ضمير weeyaan okay markii su'aal laga dhigayana waa kan markaasi saan badanaysa hamsan bad u horeysiinaysa adalika kalbun kaasi aymiya adalika kalbun kaasi aymiya marka waa ay kaafir oo markaasi aad weydiinayso qof kale oo waxaad leedahay waxaasi macnaha ma ayba adalika kalbun kaasi aymiya qofkii kale wuxuu ku yiri la maya dalika kaasi qitun wa bisad ka hor soo sheegnay oo qitun way labtahay waa bisad weey laakiin ma aha bisad ma oo hadii ay dhadigtahay iyadana tilka qitatun bay noqonaysaa marka hadama ku dhigan doona markii ay dhadigtahay waayahay horena waa u soo artay qitatun waana xaq hore ku soo sheegay waayahay halka waxa lagu yiri iyada laftarkiga halkana waa su'aal qaabkana waa su'aal istifhaam weeyaan ma dalika waa maxay waxaasi ما ذلك ما وري كوسو شيغا والله استعمالا لغير عاقل wax aan aqli lahayn sida xayawaanada sida ashiyada ama agabka oo kale waa loo isticmaalaya markaasi ama ashiyada sida dhagaxa geedka buurta wixii markaasi aan naf lahayn dhulka waxaas oo dhan markaasi wax loo isticmaalo ma ba loo oranaya laakiin wixii hadii uu qof yahay oo aqil yahay waxa oranaysa man dalika ياوي كاسي أما كاسي وايو من ذلك بنقول صندوق فيه لكن هذه هو حيوان يا معقله ما بلا ذلك سنة ما ذلك ما هذا ما هذه ما تلك ساس بالونه ذلك كاسي سرير وسرير ذلك كاسي سرير وسرير ويكافئته وواح كافئ ومركاسي مفرد أو مذكر أو لبنا اللب وحكلية أو لب هل واكن من هذا بالير من waa soo baratay man li'aqil baa loo isticmaalaa qof yaa loo isticmaalaa man hada waa yakani wa man dhalika kaasina waayo marka kan soke hada baa loo isticmaalay oo kana lagu diina markii hada la sawirka man hada waa yakani wa man dhalika kaasina waayo marka midna uu ku soo dhow yahay midna waa ka fog yahay waa laba markaasi nin baa lagu weydiinayaa marka waxa la yiraahdaa hada kani uu soo dhawahay fartaada ku fiiqaysa kan mudarrisun ama gacantaada gaadhaba mudarrisun waa macallin wadaalika kaasina imaamun waa imaam ka fog yahay markaas imaamku waa ka masaajidkii hor jooga waa ka mixraabkii baa halka muuqda musalliintii baa daba joogta halkana ardaydii almuallimu wa talaamiidu almudarrisu وطلابه وهلكنا مركزي كراسكو فديدا صورتي ومعلم وسو دغاي كنا كافو yahay waa laga wadaa macnaha sawirka si aad u fahanto halka waxa lagu yiri ma dalika waa maxay waxaasi ma hadii aad aragto waxaas waa wax qeyr caaqil ah weeyaan ma dalika waa maxay waxaasi dalika kaasi hajarun waa dhagax dalika kaasi حجر دغح وي حجر مركز waa lab oo mufrad ah oo baciid kaaf ma fahanti hada la yiri kani sukkarun wa sukar wadalika kaasina labanun wa aano ma fahanti marka hada iyo dalika waxaan u maleeyaa inaad si fiican u fahantay labada kelmadood wax mid ah loo isticmaalaa لكن waxay kala duwan yihiin qariib iyo baciid hada lil qariib wa hada lil baciid
kani waa markii wax ku soo dhow kana waa markii uu ka fog yahay laakiin waa lab waana mufrad waana markaasi lab waana maxay ku soo dhow yahay wax lab oo ku soo dhow oo keli ah mufrad ah marka saasay kula duwan yihiin waad fahantaan maleeyaa waa yahay halka waxaa la yiri iqra waa tamriin markaasi tamriin hadda dadka waxa weey waa ladies wax kale ma aha iqra baa lagu yiri akhri waqtu oo qor hada kani sukarun waa sokor wadalika kaasina labanun waa caano marka halka waxaad kala fahmaysaa sokorkan inuu lab yahay carabi ahaan sokortu way lab tahay inaga Soomaali ahaan dhidig baan ka dhanasanaynaa sonkor baan oranaa sonkortii tani waa sonkor baan oranaa marka laakiin carabiga hada baan oranayaa hada sukarun kani waa sokor wadalika kaasina labanun caano weeye marka sokortan way ku soo dhow yahay caanahana way ka fog yihiin hada sukarun wadalika labanun kaasina waa caano man dalika kaasi waayo dalika imaamun kaasi waa imaam adalika qitun kaasi ma bisadba laa maya dalika kalbun kaasi waa ay ma hada waa maxay waxani waa wax ku soo dhow oo markaasi aqli liqayr aqil markaasi shay hada ma hada waa maxay kani hada kani hajarun dhagax weey waa dhagax الكلمات الجديدة هل كان وحويا waxaad ku baranaysaa kelmadaha cusub ayaa lagu barayaa wixii 10 markaasi aad soo dhigato darsigan labaad oo markaasi hadda aan akhrinay waxa kelmadii ugu cusbaa imaamun weeyaan waa imaamka markaasi tujiye salaada hajarun dhagax weeye sukarun sokor weeye sukar halka kaafka shid kule waa la adkeenayaa sukarun sokor weeye labanun waa caano okay afarta kelmadood ayaa lagu leeyahay way ugu cusub yihiin marka tixgelin gaar ah inaad siiso ayaa laga rabaa waxaan ku sii daraynaa khiyaaray markaasi 10kan oo darsigii saddexaad ah waa darsigii saddexaad ad-darsu thalith waa darsigii markaasi saddexaad baytun oo markaasi 10radan iyaguna waxay ka hadlayaan waxa la yiraahdo an-nakira wal ma'rifa an-nakira wal ma'rifa waa wax markaasi la garanayn iyo wax la garanayo معرفة ووح لا garanayo nakirana waa waxa la garanayn marka waxa laga wadaa marka tusaale ahaan qof hadii wax ku sheegayo waxa jira wax aad isla taqaaneen waxa uu ku sheegayo iyo wax aadan isla garanaynin ama aadan isla aqoonin tusaale hadii uu ku yiraahdo nin ayaa yimid nin baa yimid hadii uu ku yiraahdo nin baa yimid hadii uu ku yiraahdo waxa weeye waxaasi ma garanay ninka ma garanaysid ma taqaanin laakiin hadii uu ku yiraahdo ninkii baa yimid hadii uu ku yiraahdo halka ka fahmaysa ninkii baa yimid hadii uu ku yiraahdo waxa weeyaan macnaha ninkaasi waa nin aad ogtahay oo aad isla garanayseen ninkii baa yimid waxa laga yaabaa ninkaas inaad nin aad suugayseen inuu yahay oo aad isla ogeydeen saas oo kale weeyaan macnaha markaasi nin iyo ninkii oo kale weey guri iyo gurigii oo kale weey marka halkan hadda baytun waa guri albaytun waa gurigii baytun guri weeyaan albaytun waa gurigii ama gurigan ama gurigu Soomaali adu macnaha markaasi saas iska noqonaysa kitaabun waa kitaab weey ay kitaab yahay lama yaqaan kitaab baa la yiri bas kitaab quraan miya kitaab juqraafiya taariikh miya wuxuu yahay lama yaqaan kitaab baa la yiri bas الكتاب باليري كتابك أما كتابكي وي مركا كتابك سو كتاب عاد سلك كرنيس قف كانوا شيء سوا ولا كرنيا مركي الله قدره ومعرفة مركي الله إلا سبحانه وتعالى نكرة وحنا كرنين ويا قلم وقلم القلم قلنكي مركاسي ووحلا كرنيا قلنكي باتري قلنكي إسي qalin ma raba hadii aad tirahdaan qalin ma raba qalin un baa lagu siinay laakiin qalinkiisi qalinkan miduu ka sii hayay inuu yahay baa laga yaabaa markaas uu kula garanaya ma qalinkii baa ku siyaa uu qornay qofka Soomaali marka qalin iyo qalinkii ay kala yihiin qalamun waa qalin alqalamuna waa qalinkii ama qalinku way noqon kartaa jamiilun jamalun way
عفوا جمل وأور الجملنا وأوركي أوركي مركا أوركي مركا ترى الغفو كل قرنيا ويا أنت عسويا وحي كل دويهين نكرة هي معرفة على كلا هذا هل كواك وحلا جرى القالم قالنكو مكسور وجبيه القلم قالنكو مكسور وجبيه مركا قالنكو وجبيه هذه لا قالن كاسي قف كانوا شيء ساي وقالن مركاسي إنه أركيا بلغ يا بابا أو مركاسي أمه لكن هذا دور له قلم مكسور بين قرنسا قالن جبان بين قرنسا قلم مكسور هذه لورن لها waxay noqonaysaa qalin jaban qalin jaban marka qalinkaasi wax la garanayo qalin meesha markaasi isloog yahay ma aha alqalamu maksuur hadii la waa macrifa marka kaliya waxaad fahantaa markay alla socotay iyo markaynan alla soconin wixii ay ku kala duwan tahay in aad fahanto un baa muhiima markay alla socon waa nakira markii ay alla socotana waa macrifa waa wax la garanayo kani wax la garanayn kana waa wax la garanayo that's all albaabu lagu yiraahdo halkan maftuuxun albaabku uu furan yahay albaabku maftuuxun uu furan yahay waa kan albaabku uu furan yahay marka albaabku uu furan yahay markii lagu leeyahay alba la socota waa macrifa waad la garanaysaa qofka ku sheegay albaabku uu furan yahay ma furan yahay waan soo xirayaa buu koornaya markaasi وحوي وواح أبسلا تقاني ويا ما أبسل أكتين الولد ويلك جالس وفريا والمدرس معلم كنا واقف وتاجن يحي الولد ويلك جالس وفريا والمدرس معلم كينا واقف وتاجن يحي ومعرفة مركا كلمة ده هو معرفة مركزي ويا الكتاب كتابك جديد وعسوب يحي والقلم قلم كنا قديم وقلم مركزي هراء أو مركزي هراء لو سو استعمالي مركز waxay kala noqon karaan mubtada iyo khabarna waa la oran karaa oo xagga tan markaas ku fahmi doonta alwaladu wiilku markaas waa mubtada baa la yiraahdaa luqada carabiga marfuuc jaalisuna waa khabarkii oo marfuuc alwaladu waa wiilkii jaalisuna mubtada markaas wax lagu bilaabo waa ismu marfuuc fi awwal jumla baa la yiraahdaa jaalisuna waa khabar marfuuc وهو خبر وخبر واسم يسمى مرفوع يكون مع المبتدا والنقطه مركاسي جمله مفيده ويسبوحينيا marka labada kelmadood alwalad jalis jumla mufida bay noqonaysaa wiilku wuu fadhiyaa laakiin wiilku kaliya hadii la oran lahaa waxa ka maqan warkii baa ka maqan warkii wixii lagu sheegay alwalad wiilkii baa tiri wiilkii qofkii dadku soo taagaya uu ku leeyahay jalis وفريا باتري والمدرس معلنكينا واقف وتاجن يحي marka waa khabarkii kan wixii qofku dhagta u soo taagay waa kelmadan dambe weeyaan waxana waa mubtada wixii hadalka aad ku bilowday weey fahamtay mubtada iyo khabar baa la kala yiraahdaa alkitaabu kitaabku jadiidun wa usub yahay wal qalamu qalinkuna qadiimun wa qalin hore weeyaan la soo الحمار دمارك صغير ويريحي والحصان فرسكنا كبير ويحي مركا الحمار ومبتدأ بالغدا صغير خبر بالغدا الحمار دمارك بقف كل دكتور سو دغيا صغير باتر ويريحي والحصان فرسكنا كبير ويحي والحصان كبير مركا الكرسي كرسيغو مكسور وجبن يحي الكرسي ومبتدئ او وحي لوgu bilaabay hadalka maksuurna waa khabarkii wixii hadalka dhameystirayay weeyaan الكرسي كرسيغي maksuurun وجبن يحي الكرسي مكسور صح saas weey markaasi waa mubtada iyo khabarna waa la oran karaa marka وانا معرفة الله هذي كلمة وضعته ومعرفة وحي الله سعته وعاد قرتها إن معرفتها أنت وأنا تقول جناتك ويا المنديل استراشدي أمام مصركي وسخ ووسخيسين يحي المنديل وكان مركز الأسئلة ترجع معه هي وحاسويان وسخ ووسخيسين يحي الماء بيه بارد ويقبويهن القمر ضيقنا جميل وقرح بدن يحي البيت قريب قريب وسود ويحي
والمسجد مساجد كنا بعيد وفوق يحي الحجر رجح ثقيل وعلس يحي والورق وراقنا خفيف خفيف وي وخ يفاء يا على كجرته فلبا دمتين مرحاتي دمتين لبا ودنبيسا خفيف ولبا خ يفاء يفاء وي ماشاسي وانا قرطاء اسك صحرا ويحي اللبن عانه حار وكلوله حار وكليل حار مركاس وحلا حار كليل كويان ما فهمت القميص قميصكنا القميص قميصكو نظيف ونظيف نظيف وي marka mubtada iyo khabarna waad baratay waxa la yiraahdo waxaad kala baratay nakira iyo macrifa waxay kala duwan yihiin waad baratay nakira iyo macrifa waxay yihiin baad baratay mubtada iyo khabarna waad baratay oo nakira iyo macrifa waxa weeyaan magacu hadii uu al wato waxa weeyaan waa macrifa sidoo kale alqamiis alhajar alqamar almasjid albayt allaban al haday kelmadu la socoto waa macrifa ma garatay hadaynan al wadanna sidii xaqi salaan ku soo dhaafna oo baytun iyo ahayd jamalun iyo kitaabun iyo ahaydna waxa weeye waa nakira wax aanan la garanaynin weeye marka waxa lagu yiri halkan اقرأ بالغ يري آخري واكتب أو قر مع ضبط أواخر الكلمات الآتية آخري أو قر أديو حركينيا آخر كمركاسي كلمتها وحا مركاسي هل كان سريعا كسور دقاني هديان وحير ديبو الله بنوم هاي 10 كي كوبا 10 كي وحا نمجيدا بلوغيسي 10 كان هل كان محاكا مقضى بيت بالغ يري قلم كتاب جمل صوته maxay tahay damateen bay wala qaateen horta damateen macnaha laba godaal saako muuqata laba godaal sumaarti laba godaalkaas sababtu maxay tahay oo qaateen laba godaalka oo tanna hal dama kaliya ay u qaadatay hal dama kaliya ama hal godaal kaliya ay u qaadatay mal farqu baynahuma farqi waxa weey mid horta waa nakira midna waa macrifo oo waxa weey mid albay wadata oo waa macrifo midna albayn wadanin haday kelmadu al wadanin oo ay nakira tahay saaso kale oo markaas ayna al wadan oo markaas ay tahay waxay qaadanaysaa damateen haday laakiin macrifo ay tahay macrifo haday ay tahayna waa ta al wadata baan quran ku sheegay al haday ay wadatana waxay qaadanaysaa dama kaliya qaadanaysaa inaad fahantaan maleeyaa halkaas markaas waa sidaas 10 kana markaas ka shaqeynaysa hada soo socda 10 kan ayaa soo qoraysa waa markaas ka soo shaqeynaysa waa ka soo jawaabaysa insha Allah masjidun halkan maxay noqonaysaa markaas حركة مع ضبط أواخر الكلمات آخر كلمة ده نحوها وحل فيريا آخر كلمة ده هو وحل فيريا ومهمة الله صار أنت بدن مركا آخر كلمة ده هذا دال كاسات حركة صار حركة دي ومركا سي متيستي باتسين إسا دال كوكاس هل كان الموضوع ونكرة هل كان معرفة وقلب وطا هل كان معرفة قلب وطا هل كان نكرة وموضوع الموضوع marka nakiradu maxay qaadanaysay macrifadu maxay qaadanaysay waa inaad iska saxdaa oo aad kelmadahan markaasi waanay halka salaada kugu sharxay aad ka shaqeysaa markaasi intaas oo markaasi aad soo qortaa oo aad soo dirtaa oo aad soo sawiri kartaa waraaqad ku qortaa soo sawiri kartaa WhatsApp-ka waad igu soo diri kartaa ardayda ku xiran baan sheegaya markaasi ha ka soo shaqeeyeen markaasi sawirka soo diraan 10ka waayahay اقرأ واكتب كون وقرصا وآخرنيسا المكتب مكسور القميص وثق marka kuwana waxay qaadanayaan halkan dambe qaadanaysa kaliya halkan damateen maksurun baan qoraysaa almaktabu maksurun alqamiisu wasiqun saasay noqonaysaa laana kelmadani waa mubtadi markaasi ama waxa weey waa macrifa tana waa nakira marka damateen bitan qaadanaysa tana dama kaliya qaadanaysa waa khabar waa mubtadi iyo khabarkii laakiin marka xarakada markii loo fiirinayo tani waxay qaadanaysaa dama kaliya tana damateen bay qaadanaysaa maadaama ay al wadanin oo ay nakira tahay markaas saasa markaasi uga soo shaqeynaysaa
kuwaas waad xarakaynaysaa waana akhrinaysaa halka waxaa lagu yiri imla fima yali biwad'i kalimatin munaasiba kelmad ku haboon ku buuxi imla alfiraaq fima yali biwad'i kalimatin munaasiba min alkalimati alatiya kelmadahana ku buuxinaysaa xagee waraad ku soo dhigtay alxajaru teeba ku haboon majmiirun misawasitun misamaftuuxun maxaarun thaqiilun khafiifun midii ku haboon baad gelinaysaa alxajaru waa taas baan maraynaya thaqiilun wuu culus yahay marka inta kale aad ka shaqeynay alqamaru xagee sare ugu jira dib baad ugu laabanaysaa ood ka shaqeynaysaa waan gartay mid waliba mid bay ku haboon tahay oo aad dhigaysaa halka banaan ayaad gelinaysaa alxajaru hadda taas aad soo qaadanaysaa thaqiilun taas soo qaadanaysaa halkan aad ku qoranaysaa saarahan ama inta waraaqii buu soo qaatay buugaaga baad intan qoranaysaa intana waad qoranaysaa halkana waad banaysanaysaa saasaa u qoranaysaa kadibna intana waad gelgelinaysaa taa waad soo qaadaysaa halkan aad ugu qoraysaa fahamtay tan albaabu waa taas weeye maftuux saasaad uga shaqeynaysaa waayahay halkan iyadana waa sidoo kale imla alfiraaqa fima yali biwad'i kalimatin munaasiba imla buuxi weeyaan alfiraaqa meesha banaan fima yali waxa soo socda ama xiga biwad'i kalimatin munaasiba kalimad ku haboon adigoo gelinaya waayahay nadiifun maxaa nadiif ahaa waxaan malaynaa inuu alqamiis waa ka qoraysaa nadiifun baaridun maxaa baarid ah ma alxaliib ahayd mise ma waxbay ahayd adoo xagga dama xaggee baad kasoo fiirsanaysaa maksuurun halkan maxaa maksuur ahaa oo jabnaa waxaan malaynaa inuu alqalamu ahaa alqalamu waad ku qoraysaa maksuurun wuu jaban yahay alqalamu maksuurun saas weeye markaasi qaabkaasaad uga shaqeynaysaa waana soo diraysaa jawaabaha ardayda ku xiran الكلمات الجديدة كلمتها كعصب القمر وضيحي جديد وعصب يهوي قديم وكلمتها مركز كعصب يكون كواني معناه بين فهمته أو حفظ ذلك عقبها القمر ضيح جديد عصب قديم وحرويان وجديد بكسر جدا وسخ ووح وسخ يسن أما وسخ له نظيف وحوي ونظيف حار وكلل بارد قبو صغير وين كبير صغير يرده كبير وين مفتوح فرن مكسور جبن ثقيل خلص خفيف فضل جميل قرح بدن واقف تاجن جالس فرديه ساسوي كلمتها سنة وسلاسي إن شاء الله وحد سمعنا القاسم عشر كينا إن شاء الله وجوج سنة عشر كلا أيام مركزي bilaabani doonaa hadii ilaahay yiraahdo halkaas inuu bilaabi doonaa barnaamijka share gareeya si ay dad fara badan oo luqadda carabiga u baahan oo aad ugu baahan ay u gaadhaan inaad markaasi share gareysan baan ka codsanayaa insha Allah cashirkana ku xirnaada oo WhatsApp-ka numberkayga halkaas idin ka soo muuqanaya ayaad markaasi ku soo direysaan insha Allah alkariim. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.